habeen wanaagsan dhammaan marwooyinka iyo mudanayaasha sharafta leh anigoo ku hadlaya magaca gudida soo qaban qaabisay xafladan waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa sida sharafta leh xushmada iyo qadarinta badan ee aad uga soo qayb gasheen waxaan aniga magacayga Seyna baa la yiraahdaa waxaan daadihinayaa insha Allah programka caawa waan ka xumahay raali baa ka aanaysan dib u dacwateeni caadada ahayd inkastoo anu lixda ku qorayda waa arkaysaan imkadan qudheeda iyadoo aan dadku isu dhamayn laakiin waqtiga dartiibaynu u bilaabanaynaa ummad muslimna baynu nahay haddii la isu yimaadana waxay ku qurux badan tahay inaynu diinteena raacno marka waxaan ku bilaabanaynaa xafladda haddii ilaahay ka dhigo aayado quraana oo inoo akhriyo Ibrahim Ali Ibrahim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First and foremost, I would like to introduce myself as Ibrahim Ali Ibrahim, and I am a Somalilander. I would like to seize the opportunity to congratulate Somaliland's people, citizens, and government upon democratically electing 3 political parties, Wadani, U'id, and Kulmiya. I would also like to send my condolences to those who lost their lives during the recent demonstration in Hargeisa. May Allah grant them Jannat al-Firdaus al-A'la. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Furthermore, out of the 3 political parties, I truly believe that Wadani is a party of the future and the party for the youth. I have personally met the chairman, Abdurrahman Abdullahi Ero, and found him to be a man with a clear mission and a clear vision to make Somaliland a more peaceful and a more prosperous nation. I, as a youth, growing up in the GTA, find it crucial for us to have an identity in which we can be proud of, and indeed Somaliland has restored the honor and sharaf we have as Somalilanders. Moreover, for all you parents here tonight, I would like to recommend and advise for you to take your children back to Somaliland so they can see our rich cultural heritage we have, also so they can enjoy the white sandy beaches of Berbera, so they can see the beautiful mountainous regions of Borome, so they can see the plain lands of Barao, so they can see the rich farmlands of Odwene. And finally, I would like to conclude you all for being here tonight. Your presence here is much appreciated. Somaliland Hanolato, Wadani Hanolado. Thank you. Thank you very much, Edo. That was well articulated. And waxaan hambaliyeynayaa oo aan ka daba raacayaa Ali Amin Ibrahim Ali Ibrahim waxaan hambaliyeynayaa saddexda xusbi halkan wakiiladoodii baa inala fadhiya waxaan hambaliyeynayaa reer Wadani ilaahay wuu inagu garab galay waana inagu guuleeyay hawshii waxaan oranayaa hees uu leeyahay Ismaaciil Cagaf Allah u naxariistee isagu markaa ka hadlayay xorriyadda ayaan bedelayaa beedka halku lahaa waa ma hadale maanta dunida ka mid baynu nahay waxaan leeyahay waa ma hadale maanta xusbiyada ka mid baynu nahay waa dharaartana saagay dhinac galay ee ku dhararsiday soo ma soo dhicin waxaan iminkana u yeerayaa gudoomiyaha chapterka Wadani ee Toronto ama GTA-ga oo kelmad soo dhaweynayna oran doona waxa weeye jaamac soo dhaw jaamac marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka labaad ku soo dhawaada xafladan caawa oo munaasabaddeedu tahay in lagu soo dhaweeyo laguna maamuso laguna xuso xisbiga Wadani oo noqday oo gudbay xusbi qaran maanta waxaan halkan taageer guushan waxa leh aan ku hambaliyeynayaa hoggaanka
xubnaha iyo taageerayaasha xisbiga wadani meelay joogaanba adduunka. waxaan leeyahay halgankii hore waynu ku guulaysanay, imikana maantana waxaa inoo bilaabmayaa halgan cusub oo ah sidaynu u noqon lahayn ama halgankii aynu ku noqon lahayn xusbiga ka taliya jamhuuriyadda Somaliland. waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa hoggaanada, taageerayaasha, xisbiyadii iyo ururadii doorashooyinka ku loolamayay. waxaana ku tahaniyadeynayaa sida nabadgelyada leh iyo sharafta leh ee ay u dhaceen doorashooyinka, oo ay u ilaaliyeen nabadgelyada iyo xasilloonida jamhuuriyadda Somaliland. ugu dambeyn waxaan mahad gaara u jeedinayaa martida sharafta leh ee caawa halkan xafladan isugu timi, xubnaha isku soo dubariday iyo dhammaanba muwaadiniinta Somaliland ee u arkay xusbiga wadani inuu yahay xusbigii ku hoggaamin lahaa cadaalad, sinaan iyo siyaasad hufan, iyo una horseedi lahaa nabadgelyo, xasillooni, kobcin dhaqaale iyo ixtiraaf taama oo aanu kaga mid noqono qaramada midoobay. intaasaan ku soo dhammaynaya anigu, iminkana waxaan ku wareejinayaa Zainab. waad mahadsantahay jaamac. halmaan hadal kuma jiray waxay ahayd intaana jaamac u yeedhin inaynu national anthemkii dal baynu leenahay aynu dhegeysano. markaa dhalinyaradaas ay xasuusisay jibadii baan u malaynayaa xusbiga ay jeeday. haddana waa loo saro kaco please national anthemkii. iminkana waxaan gabay ku saabsan ururka wadani, xisbiga wadani, inoo akhri doonaa Axmed Doobaje. Zainab aad iyo aad baad u mahadsan tahay. mudanayaan iyo malwooyinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatihi. magacayga sida laydin sheegay waxaa la yidhahdaa Axmed Doobaje. waxa aan isku dayaa marka qaarkood inaan waxoogay hal abuur isku dayo. waxaana jirtay gabaygu wuxuu ku leeyahay dhaqankeenna wax weyn, qiimo aad iyo aad u badan buu ku leeyahay, suugaantuna ay ku leedahay. waxa la yidhaahdaa suugaantu waa nafta ummadda, ummadda aan suugaan lahayni ummad jirta maaha. nin jarmala ayaa ereygaa bixiyey. marka suugaantu gabaygu wuxuu leeyahay laba nooc buu noqdaa: gabay ah maxaan ku la sameeyey iyo mid soo dega. gabayga la sameeyey waa wax la ururiyey oo macno badan ma laha, laakiin gabayga soo dega isagoo oo dhan ayuu soo degaa in waxba laga bedeli karin.
اختيار مالها قفك قبياقيه مركا قبيقا لو سو ديبو وإنو سيديس كوجيه محنا كم بدل كرو مركا قبيقا وحو محن كره وحو كورما أدون بلارن iyo taariikh ballaaran ayuu ka waramaa gabaygan caawa aan soo jeedinayaa waxa weeye gabay ka waramaya mustaqbalka waxaana la sameeyay maalintii lagu dhawaaqay xafladii Toronto ee ururkan maxaan ku raacay imika xisbigan wadani markuu urur ahaan loo sameeyay lagu dhawaaqay marka gabaygaasu wuxuu la kulmay waqti Somaliland اعترافكيga laga caalamku ka hadlayay marka gabay kale oo اعترافka Somaliland ku saabsan ayaa waqtiga yimi dabadeed waxay noqotay in gabaygan dib loo dhigo oo ka اعترافka Somaliland ku saabsana habeenka la soo jeediyo nasiib wanaag chance kale ayaa yimi marka caawa waxa weeye xafladii habeenkii xafladda wadani oo xisbi noqday loo dabaaldegayay sida awgeed waa loo baahan yahay caawa in la keeno gabaygan marka gabaygan wuxuu ka hadlayaa wadani oo roob noqday oo soo hilaacay oo soo onkoday oo gobolladii Somaliland mid walba daruur dulgeeyay oo dabeedna roob noqday oo ku da'ay wuxuu ka warramayaa xayawaankii oo dabaaldegaya oo qolo waliba meesheeda ka cayaarayso waxaan yaroo maadaama doonayaan ku daro waxooga yaroo qabyaalada baa jirta marka gabayadii qaar baa la igu qabsado waxa la yiri xayawaankii ayaa maxaan ku dhahay qolooyin galiyay ka reeb intaas baa la igu yiri marka waan ka reebay intaas gabayga waxa la yiraahdaa show wadani buu ahaa waanan garanayni show wadani buu ahaa waanan garanayni warsamow adduunyadu waxbay waaba bixisaaye weynuhu tilmaantu faray waafi fulisaaye warka soo baxay aan maqlaan warinna soo joogso weel dhega ka yeelo imaqal weersan baan odhane waqooyiga fadkii soo baxay walaal calaynayay ee wagar dusheedii maree welina sii muuqda show ileen wadani buu ahaa waanan garanayni hogashii waddada dheer dul timi waaga berigiisa ee wadaamo goob buuxisee wirwiri u sii dhaaftay show ilaan wadani bay sideen waanan garanayni warsamow wadani waa miday kaba wareereene waayo arag ayaa lagu dhisiyo wada jirkeen guude wada bixiyo weeyaan u roon waaga soo galay waa Ibrahim Cali Ibrahim halku ka hadlayay wada bixiye weeye ummadda reer Somaliland khaasatan dhalinyarada ayaa la filayaa inuu jid u bixiyo oo jidka horumarka u tuso warsamo wadani waa miday kaba wareereene waayo arag ayaa lagu dhisiyo wada jirkeen guude wada bixiye weeyaan u roon waaga soo galay wad madile ilaaheen u bari waarid abidkiisa wacdarii ka dhacay doorashada wacdarii ka dhacay doorashada yaa warkood yimiye wadanaa ilaah keenay oo wadata uunkiye wadanaa ilaah keenay oo wadata uunkiye waxa duula wax gurguurta iyo waxa duula wax gurguurta iyo wada lugoolayba wiglo iyo cayaar bay dhigeen waaga berigiisi wiil iyo biciid baa horgalay wadar dugaagii show ilaan wadani bay yihiin waanan garanayn Soomaalidu waraabaha ayay ugu neceb tahay xayawaanka hase yeeshee waraaba laftiisu waa wadani halkan ay ka muuqataa waraaba ariga daajiye waxarna aan riicin show libaaxii wareegiye kiciyay waran dusheediiba show ilaan wadani buu ahaa waanan garanayni warsamow wadani waa miday kaba wareereene waayo arag ayaa lagu dhisiyo wada jirkeen guude wada bixiya weeyaan u roon waaga soo galay
wadmadilay ilaahayn ka yeel waarid abidkiisa السلام عليكم waad mahadsantahay axmed waa sidaasoo wiishii iyo waraabihii iyo ugaadhii iyo daruurtii iyo daadkii cid walba waa wadani waxa aan iminkana jeclahay inaan microfonka ku wareejiyo oday ka mid ah odayaasha ama baan idhaahdo hormoodka odayaasha Toronto ducaale maxamed xirsi waa tee ducaale ku soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحمد علي وحلان إيمك كفتمينا لها ودبال دقي محين ولا سقوين وقرد ودبال دقينا إلا أنت اللي قلنا واقعي تاسو أي كفتن مركوه الرئيسة إبا مهادله مرلبات كان dadka soo qaban qaabiya xafladda ayaa mahad leh saddexaadka waxaan filayaa sida haraba loo yiri in ay tahay xafladanu dabaaldeg ururnimadii laga baxay saddexda xisbi ee qaran wadani ka mid noqday balaas guushii uu ka soo hooyey tartankii oo uu kaalinta labaad galay saddexda xisbi sida iminka muuqata mar waxba ka jeclaydaan waa kaalin laba huba kaalinta koowaad baanu ku jiraaye siba waxaan filayaa cid waliba waa og tahay marka anoo ka duulaya taa waxaan leeyahay hambaliyo xisbiga wadani guusha uu ka soo hooyey tartankii labada xisbi qaran iyo 7 urur ay u tartamayeen oo uu kaalin mugle ka galay inta haddaan halkaa ku daayo meesha tartan baa la galay tartankuna dhibaatooyin fara badan buu leeyahay markii axsaabta la furayay ee la doonayay anigu waxaan ahaa ee lalaha la furo dadkii ka soo horjeeday ilaa 60kii axsaab baan soo maray dhibta ay leedahaan garanayaa sharcigii markii la dadseeyay xasaasiyadda ka iman kartaan garanayaa cid waliba waa garanaysay waxaan oo soo qaatay oo keliya 3,000 oo qof oo interes gaarihii ugu jiro oo qof waliba doorasho doonayo oo wuxuu hanti haystayna halkaa ku bixiyey oo hadhow waaya oo tolla ay yidhaahda miyaanu intiina yar idinka daadin karin ilaahay mahadi anigu inta sida ugu dhacday iyo inta ay maanta waxay yihiin ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa caalamkuna waa inoo qiray dadka reer Somaliland waa dad waxay tuseen 2 bilood waxaan qurahay ka eegaya dadkaasu siday xamaasadda u lahaayeen siday u diyaar garoobeen sida aan intii lagu jiray midi ku taaga lagu jiray aan deero u hirdin waa wax ilaahay lagu mahadiyo tan inta ka gudbo oo u soo kaco maalintii habeen halkan amaanu maleynaya inay ahayd lagu walqalayay xisbiga ururka wadani ee farax halkan laga furayay erey baan idhi waxaan jecelahay wadani inuu soo baxo ayaan idhi hadafka maalintaa intaana aan u idhina maan caddayn laakiin cawar caddaynaya markaan idhi waa inuu wadani soo baxa axsaabtii kale ururadii kale tartamaya waa ku dhibsan karaan waha laakiin waan u bareeray sababtaan u odhanayana waxa weeye anigu waxaan balwo wax la yidhaahdo waxa ii ah siyaasadda dhacdo kasta oo 21 sannadood dalka ka dhacday intii hogaaminaysay qof waliba wuxuu ka hadlay wuxuu sameeyey waxa uu yiri waan qoraa dabadeedna buugagan dib u daalacda oo eega waxaan soo qaadanaya gudoomiye iyadoo aan nin caawa halka fadhiya oonaan magacaabayn iyo habeenada ka mid ah
annagoo meel joogna xafalidan meel ku leh ayaa waxaan idhi waxaan anigu doonay axsaab lama furin markaa axsaabina ma jirin yaana waxaan rabaa cabdiraxmaan ciro in uu axsaabta ka mid noqdo lama furin haddii la furo ninkaasaan jeclaan lahaa inuu soo baxo ninkii hadalkiibuu iska guntaday beryo dambaa xisbigii urur uu furtay cabdiraxmaan dabadeedna dicaayad baa soo baxday wadani waa shirka kulmiye oo ilaa idinkaa soo saaray oo watay ninkina tiibu guntaday haddaba anigu waxaan caawa u leeyahay taahaa laba arrimood oo aan ku qaatay iyo laba arrimood oo kulmiye waxaan leeyahay waa xisbigaan ahayo hadduu afku iga xado raalli ahaada iyo laba arrimood oo wadani uu guusha ku gaadhay inaan caawa idiin sheego ama inay siday aniga la tahay kow labada aan ku qaatay waxaa ka mid a taariikh waliba dhacdo waliba waxleh cabdiraxmaan ciro intuu hogaaminayey baarlamaanka intuu hogaaminayey muxuu ka soo maray xabad baa loo qaatay xafiiskaa laga xidhay waardiyihii baa laga kaxaystay habeen waliba xusuus lehe khamiistii jimcuhu soo gelaysay miyaa ilowday maalintii xabadda loo qaatay ee saddex isaga iyo cabdilcasiis iyo saddex nin laba xabaddu halkaa u martay ee dabadeedna ilaahay uun inoo gargaaray saleebaan gaal ninka la yidhaahdo iyo markii la yidhaah 2 sannadood baa la kordhinayaanu madaxweynaha ka soo qaadee hadda saleebaan gaaloo ku dhawaaq haddaanad ku dhawaaqin furaan ninka la yidhaahda buu xagga dambe la tegay war waa khamiise jimcaha igu sin buu yidhi jimcihii maxaa dhacay waa ku ololaha qaaday ee yidhi waa inay dimuqraadiyaddu hirgashaa wuu iska fadhiyi lahaa halkiisuu joogi lahaa waxaa soo dhiba ma marin weliba waxbuu futayn lahaa haddii la doono hal jasaa lixsaan ila lixsaan qofku hadduu wanaag sameeyo hogaamiye uu yahay waa in wanaaggiisa loo qiraa waa qaatay habeenkan iyo dhacdadaas mid u meel martay oo waxbay ahayd waxaa la yidhi dan mahmaaho yar ku daro dadkan dhaqankeena reer guuraaga ahaa ninku inan layaalka markuu yahay reer buu u tagaado inantii baa loo dhisaa marka inanta loo dhiso inantu labay noqota mid gacan qabsiga uu reerkiisii ka dhisto iyo mid reerka inanta lihi uu looga dhiso aroos baa halkaa looga geeyey halkaasuu joogaa halkaa isagoo meeshii jooga ninka arooska waa la waqaqaynaya inantu ilaa ay 2 daood dhasho waa inan yaroo sindheer oo 14 jir iyo 15 jir baa lagu guursanaya ilaa ay guri ka adkaato islaanta hooyadeed ma ogolaato in la raro 2 daood markay dhashaa baa lagu darado la yidhaha hadda gurigaaga waad ka adagtay orod ninkii isagoo halkaa iska jooga oo habeenada ka mid a yaa dhacdo yaro khafiif ah dhacday dhacdadaas waa maxay ninkan arooska waa la waqaqaynaya burufudla loo samaynayaa kuruska iyo hilib baa la isugu shiilayaa caanihii geelaa la siinayaa habeen isagoo dee iska raaxaysanaya yaa mana dee calooshii waxba qaadi weydado waxoogaa accident dhacay dhar cad bay inantii sidataa isna dhar cad buu sitaa ninkii taladii baa ku caddaatay deeqaduu ka booday wuxuu gabadh yahay ogow ha anigu halkaasaan ka cararay war naga fadhiisay tiraabahaba matalin weligaa dabbay soo qaaday dharkii iyo gurigii iyo wixiiba dabbay ku qabatay ninkan haddii aan sidaa la yeelin sumcad bay kala baxsatay waynu naqaana dadka soomaaliyeedna isaga iyo ubadkiisaba reer salli ku xaar baa loo bixin lahaa marka dabbay sudhay dee da 2 qof oo qaawanu badhar lagu soo tuuray waa la raray reerkii gabadhii waxay noqotay gabadh kulul oo dab ah guryo xagga markay tagtay bale war gabadhan taag heli mayso war naga furtan war wacaynka habeenkii dharabeed bay dhan iiga dhacday iiga daabuu yidhi noo sharax baa la yidhi qisadii buu sheegay markii qisadii sheegay baa la yidhi qof la hadla ma jira gabadha weyn halkaa lagu qaada dadka day siduu abaalka u gudaday abaalka siduu u gudo oo gartay aniga cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani taa aan qaatay habeenkaasoo mid bay ahayd iyo kuwa badan maxaan kaloo ku qaatay oo talabaada 2 sifo uu leeyahay cabdiraxmaan yaan caawa sheegaya markaan eego dadkaa shaqaynayay 2 uu leeyahay waana 2 ku guulaystay cid kasta ha tiraahdo xan ha la yidhaahdo wax kasta ha la yidhaahdo 2daas waa maxay waa 2 sifo oo dadka reer Somaliland ay nacab yihiin reer Somaliland waxbaa soo maray
dhibaataa soo martay laba arrimood hadday maqlaan cabdiraxmaan siyaasadiisu mid ku dhisan xajiimayn maaha mid qabiil ku dhisan oo kala qaybin ma aha mid wax qadariyo weeyaan dadkuna marka ay maqlaan nin Soomaaliland wax ka sheegay dhagtay taagayaan run bay moodeen alla waxay xusuusanayaan wixii soo maray marka xisbigan wuxuu guusha ku helay markaanu dabadda joogno guusha wuxuu ku helay oo kaliya waxa weeyaan inta uu siyaasadda ku jiray oo xajiimeyn iyo wax lagu caado iyo kala qaymin midna aan lagu shaabadayn ayuu xisbigan guusha ku gaaray anana hambaliyaan u leenahay waxaan hadalka kaga baxayaa oo aan leeyahay waxa weeyaan wadani wax kan la isku xanto la yiraahdo kulmiye iyo kan iyo waa isku dhow yihiin hadda col iyo cadaawaynu noqonaynaa sababta keenaysana waxa weeyaan duruufaha keenaya annaguna xisbul xaakimkii baanu nahay idana xisbigii waa soo baxdeen oo mucaarad baateen labadii shalayto isjeclaa birri way isnacab yihiin salaam calaykum dacwad ma santa oo anigu soo ligi islaamka wadanigu soo galay sidoo hadalisi laakiin ma fogid kulmiye waynu wada hayneen bal aynu hoos isu wareysano labadeen waxaan inkana u yeerayaa nin ku hadlaya magaca ururka kulmiye jirde beergel wuxuu ka mid yahay jirde golaha dhexe ee kulmiye wuxuu ka mid yahay aasaasayaashiisii wuxuu ahaa intii aanan kasoo diga roganin booskaygii markaa soo dhawow jirde horta marka hore haddaanu kulmiyanahay waanu hinaasaysannahayo inantii ugu actifsanayd North America ee ugu ismaarsanayd baa naga soo baxdo idinkeedii soo gashay marka taas horta waa hinaasadii naga yar noqonaysaa talabaad horta marka ugu horeysa mabruuk awguuriyo congratulations xisbiga wadani hadduu nin aftahmi kaa horeeyo waxaad tidhaahdo waad garan weydaa marka ducaala wixii oo dhan dhameeyey anigu wuxuunoon leeyahay dhinac kaan uga wareegiyo dimuqraadiyaddan aynu qaadanay haddaynu reer Somaliland nahay waxa ay u baahan tahay xisbil xaakimkii hadduu jiro xisbi kale oo quwad leh oo ilaaliya oo u findhicila oo daba socda oo toosiya oo xisbil xaakimkuna ka baqo haddii aanay dawladii lahayn ama dalaanu lahayn xisbi muxaafid iyo xisbi mucaarid oo quwad leh dumareedii marka waxba ka sii noqonaysa marka inay wadani imika waxa uu ducaala yidhi kulmiya lagu xantaa laakiin wadani wuxuu ka soo dhashay ucid marka ucid iyo wadani waxay haddii aynu helo xusbi adag oo na jeegareeyo na ilaaliya waa inay iyagu horta midoobaan waxaan ugu baaqayaa inay wada shaqayn wanaagsan yeeshaan oo ay innaga noo findhicilaan haddaan u galo waan ku taageersanahay ducaale inuu afkayga kala baxay baad moodaa guddoomiyaha wadani waxaan anigu idhi 10 sannadood ninka baarlaman 82 qof oo Soomaaliyeed xukumayay oo hor joogay oo aan wax dhibaato iyo ceeb iyo isku dhac iyo waxba toona laga helin horta waa nin raganimo muujiyay oo leadership wanaagsan muujiyay waxa kale aniga igu taagan habeenkii daahiriyaale baarlamaanka xidhay khudbad buu jeediyay wuxuu ku jiray mowqif adag oo inay ninkii maqaadii dhameed uu xukumayay laga xidhay wuxuu is yidhi khudbadiisaasi ama dadkay isku dili lahayd ama isaga u muuqan lahaa nin weak leader marka meel wanaagsan buu istaagay dadkiina muu kicinin ummaddiina runtuu u sheegay waxay wax ku raadsanayaanna wuu sheegay marka habeenkan waxaan qabaa leadership wanaagsan buu muujiyey tii ducaalana way u raacdaayoo markaad eegto waxaan daawaday nin
ucid ka ah inay wakiilaho London interview TV-yada ka sameynayay wuxuu yidhi annaga waxa naga xaaraana inaanu cidna aflagaadeyno cidna xagxagino laakiin issueska unaanu address karayno waana muujiyeen oo ilaa imka lama hayo ciro oo cid aflagaadeynaya ama hadal adag ka tegay waana leadership wanaagsan waa xagga islaamkana way ku fiican tahay waxaan leeyahay anu halkii ducaalo odhan maayo cadow baynu noqonaynaayo maxaa tartan xun baa inaga dhexaynaye inay annaguna waxaanu bilaangaraynaynaa inaanu 20 yearska soo socodna xukul xaakimka ahaano idinkuna waxaad bilaangaraynaysaa inaad 2 years from now naga qaadaan marka kubadda si fiican oo inay annaguna waxaanu berigii horeenu mucaaradka in xoogaa waanu yar inay doodayadu way adkayd idinku taayadii ha noqonin haddaad sidii hore ku wadaan tartan wanaagsan baynu geli doonaa annaguna wayna dhiiri gelin waxbaanu qaban ummaddan wuxuu qaban soo dhowaada congratulations wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa mahadsantihiin ducaale iyo maxamed waxaad moodaa xaalkoodu waa maslaxaad kasa socon mayso shalayto haddaa kulmiye iyo ucid ay macaarid wada ahaayeen maantana wadani iyo ucid baa macaarid wada ah sidaa u heshiiseen shalay ama aynu u heshiinay innaga iyo ucid baanu maanta u heshiinayna waana laydiin fandhicilayaa ha u fadhiina 20 baa sheegtay haddaa labada dhamaysataan baa brosidaa iminkana waxaan u yeerayaa khadar guun gudoomiye ku-xigeenka North America ee ucid oo ku hadli doona magaca ucid بسم الله الرحمن الرحيم مركو هore waa idin wada salaamayaa mudanayaal iyo marweynba dadkan walaalaha ay meesha isugu yimid Soomaalidu waxay ku mahmahdaa ana haray looma hadlo hadal tixiya tiraaba waa la biyo dhigay odayaal dhalinyaro rag nooc walba iyo haweenba waa la hadlay meeshan caawaynu ka hadlaynaana dee madal walibana hadalkeeda leedahay meeshan maanta aynu ka hadlaynaa waa farxad iyo damaashaad aanu la damaashaadayno xusbigaan mataana ahayn haddaan u cudnahay ee garabkaygii midig ama waxaan oran karaa naga soo go-ay annaga laba guulood bay noo tahay haddaanu nahay u cudii hore laba guulood bay noo tahay oo dee midigteedii bidixdayadii haddii aanu laba xusbi noqonnay dee waxaan filayaa guusha ugu weyn annagaa sidnaa waddani waxaan leeyahay soo dhowaada Soomaalidu waxay ku maamahdaa guuli laba qof kama wada farxiso xusbiyo badan ayaynu ku gallay waxaynu kaga soo hadhnay 3 laba xusbi oo aasaaskii hore xusbiyada ah oo kulmiyo xusbi xaakimka ah iyo ucid iyo maanta waddani waddanka sida xusbi xaakimka ay mas'uuliyad u saarantay ayay inagana inoo saarantay haddaynu waddani iyo nahay ucid shalay halkaa waxaa noogula jiray kulmiye maantana waxaa nugula jira waddani shaqada inoo taalla waxa weeye toosin dadku macaarid bay yidhahdaan laakiin anu waxaan idhahdaa ma xusbiyada loo bixiyo toosiye waayo innaga waxa weeye wixii qaldan ee waddankeena ka qaldan iyo wixii tala ah labadaba inaynu la garab taagnaano xusbiga inaynu qabanno weeye inaynu u sheegno weye xusbi xaakimka iyo dowladda halkii godoloola aan inaynu gufayno ilaan cadow baynu leenahay waxa weeye geeljiri geelina waa wada jirtaa waana kala jirtaa marna waxa weeye waxaynu ka hadlaynaa dee saydaradii iyo deyrkii Somaliland iyo sidii loo ilaashan lahaa taa waynu ka wada midaysanahay markay noqoto kala riixadkeena kuraasta sidii tiimkaynu soo maray ama ay noqoto kursiga madaxweynaha ama xildhibaanadana waa tartamaynaa laakiin ballankeenu waxa weeye tii la oran jiray doqon baa halkii lagu kaftamay muddayn lagu kala tegay guusheenu waa guul Somaliland u soo hoyatay waana xusbi daan anigu wada garanaya madaxdiisa oo dee in badan aanu qaarkood soo wada shaqaynay farxad weynaya waxaanu leeyahay maanta sidaa xantaba loo sheegay la yidhaah oo ducaale buu marinayay dee loogu eedeynayay way isku yara dhow yihiin annana waanu iska nidhaahnaa waxaanu dhahnaa way iskaga kaaga dhow yihiin laakiin maanta duruufaha siyaasiga ah ayaa idinka iyo annagana walaalaynaya innagoo markaa dowladdii la xisaabtamayna
matalaynina dadkii iyo dantii waddanka iyo wixii naloo dirtay keenii taa ka baaqdaana waa nin hawshiisii gudan waayey loo doortay maxamed beergeelna waxaan leeyahay dhowr goor wuxuu yidhi dee weyda noo findhiceli annagu ma findhicilayno ilka habaynaanu idinka daadinaa laga yaabaa ya marka horta findhicil anaga sugina kulmiyana waa yaqaanaa mucaaridadoo iyaga aabba noogu ahaa berigii aanu hargeysa joognay ayaa waxay ahayd baan filayaa 2007kii xusbiyadu way kale capacity badan yihiin mar walba xusbul xaakimku markuu meesha fadhiyo haykalkii dowladeed baawarkii waxyaabo badan baa jiro inta badan uu ka miisaan badnaadaa kulmiyana dhexdhexaad baa cidno waa ka yaraa odayaashii aan mobilize gareynaynay iyo dadkii aan wacyigelinaynay baa nala kaftay wuxuu waniyo qoladiinana cud marka waxaa mar walba kuleel ka bilaabmaa udub iyo maxaan ku dhahdaa iyo kulmiya annaguna waxaanu yara galnaa waan in badan dee waad aragteen oo maslaxaadaanu yara galnaayo tanaasulkaan kusoo durkinaayo dee waxaa loo baahan yahay adigu gaasket baa udhexeeya gasketku wuxuu udhexeeya labada birooda adag gasket baan in badan hayn maanta waxaan filayaa waddani inaanu sidaydii gasket noqon inuu isna xadiid kala noqdo si ay biruhu isu leefaan waddankana aynu toosino aqoonna way u leeyihiin oo dee waa raggaan aad iyo aad ugu hanweynahay odayga wuxuu nagu yidhi war waxaan noqoteenu saddexdii awre reerka ee laysku xidhiidhin jiray ee mid awrka ugu weynay hayin u ahaan jiray buu yidhi ee la horreysiin jiray kulmiyana ka kale ee layli baxay ee dee xooggee kaaxiga idinku waxaad noqoteen ka yaree u dambeeya xidhiidhsan buu yidhi ee markii hirku soo kaco ayuu uduba ka horeeya odhanayaa buu yidhi hir baa soo kacay kulmiyoo ku xigaa oo jikaaraya odhanaya buu yidhi waa yeelkadii idinkoo cudina waxaad kala ma tidhahaan ashhaadaad qabsataan ashhaadaan laa ilaaha ila allah baad qabsataan marka horta waxaan idiin sheegayaa oo cudee ashhaadii soo dhaaftay tii ilaahay la haysta mooye maanta kuwa laga warwarayay macaaridka ilkaha kulul ee laga baqaa ee ku sunta waa annaga dee idina kaalinta nala buuxiya farxaddana waa idila wadaagaynaa xafxaladayduna waa xigi doontaa insha allah dhammaantiin waa idin madcasumi doonaa dalka dowladda shacbiga intabana waa hambalyaynaya doorashooyinkaynu soo gallay wasalaamu calaykum aad baad u mahadsan tahay khadar mahmaahdihii aad tidhi mid ka mid ahun baan ku toosinayaay waxa weeye doqon baa halkii lagu kaftamayo mooda doqon maaha suhuur markaa ay laba kelmadoodina tidhaahdo khudbadaydii baa bilaabmaysa السلام عليكم هبين وناكسن هلا غير رالي هذا waxaan caaw aad ugu faraxsanahay inaan ka hadlayo maxay heeday xafladan aynu ugu dabaaldegayno ururka xisbiga wadani waxa kale oo aad ugu faraxsanahay inaan maxay heeday caaw mar labaad isugu nimid aniga oo markii hore aan idinku soo hambaliyay habeenkii ugu horeysay anagoo urur ah caawana waxaan idinku soo dhaweynayaa anigoo ka hadlaya magaca haweenka xisbiga wadani aniga caawa waxaan ku hadlayaa magaca garabka haweenka waxa aan ku hadlayaa magaca gabdhaha waxaan ku hadlayaa magaca marwooyinka waxaan ku hadlayaa magaca gabdhaha yar soo koraya xisbigani waxa weeyaan xisbiga bahweynta wadani waxa weeyaan xisbi aan gola sare iyo golaha dhexe iyo golaha hoose mid dadku way wada siman yihiin qof waliba waxa maxay hayday uu mutaysto ayuu ogol yahay waxa kaloo aan idin sheegayaa xisbigayga ururka wadani waa xisbi gabdhaha ay kaga jiraan safka ugu horeeya gabdhaha aad bay u ixtiraamaan waxay ogol yihiin wax kasta oo ay raggu ay qaban karaan marka xisbigan ku soo dhawaada waan idinku soo dhaweynayaa aad baan idinku soo dhaweynayaa mar labaad mar saddexaad waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu سينب ومرتب مدنية مرويين dadweynaha sharafta leh waan idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax yar 10 minute dhagihiina iyo amaahiya raallina ahaada hawli waa isla qabasho
waxaan u malaynayaa waan soo dib dhacay raalli ahaada wax badan ayaan idin raalli gelin doonaa baan u malaynayaa waxaan u malaynayaa sugaantii way ka jeesatay bulshada raalli ahaada saxaafaday raalli ahaada saxaafaday raalli ahaada waxaan u malaynayaa saxaafaday hadhowtaad wari doontaan wixii aanu sheegno raalli ahaada waxaan u malaynayaa caawa wiil dhashay walqashiis ayaynu isugu nimi wiilkaa dhashay waa xisbiga waddani oo ka soo jeeda jamhuuriyadda somalilan xisbiyada ugu waaweyn uguna caansan kuna guulaystay tartankii doorashada oo isagu dhudhubo ciidhiyoon kala soo dhex baxay maamulka ama xisbiga talada hayana aan isagu ahayne karaamadiisa ku soo baxay ayaan caawa taageerayaa anigoo si toosa ugu biiray ishana in badan ugu hayay baan caawa waxaan caddaynayaa wuxuu yidhi maxamed xaaji ibraahim cigaal wararaba iscaddeeya cabdilaahi lagjar caawa waxa uu si toosa ugu biiray kana mid yahay anigoo mu'alifiinta jamhuuriyadda somalilan ama ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto halabuurada ka mid ah oo shanta soomaaliyeed ay tirsanayaan somalilan jabuuti somali suud nfd iyo ogaadeenaya laakiin ka soo jeeda somalilan ka soo jeeda oo u dhashay gobolka sanaag baan ku dhashay caawa waxaan idinkala qayb gelayaa kuna biiray xisbiga waddani laakiin guud ahaan xisbiyada ama somalilan oo dhan halabuur baanu ahay xisbiyada kale hadday dhaliil la yimaadaan iyo ammaan waxay la yimaadaan waan sheegayaa anoo xisbiga waddani ka tirsan oo dee ahna ah baan ahay marna halabuurkii somalilan ayaan ahay marna xisbiga waddani baan ka tirsanahay waayahay haddaba caawa wiilka dhashay dabcan gabay aan ugu talagalay ayaan wadaa dhaliilna waan sheegayaa farxadna waan sheegayaa xisbiga waddani farxaddaan idinkala qayb gelayaa wixii dhaliilana waan sheegayaa qarin maayo thank you zaynab yuusuf xaaji aadan sow gabadhan ii sheeg waxaan u mahad celinayaa dhammaan horta waa idiin mahad celinayaa intaas soo qaban qaabisay iyo shacabka qiimaha leh ka soo qayb galay xafladan waddani loogu wanqalayo looguna dabaaldegayo magaalada Toronto dalka Canada waayahay iyadoo saxaafadii guud ahaan ay joogto oo haddii la yiraahdo ay nagala soo qayb gashay iyaguna waxaan u mahad celinayaa Suhuur Xasan Abiib markaad meel doonaysa inaad ka mid noqoto waa inaad tiraahdo warta meesha yaa ka mid ah xubnaha ka mid ah maxay yihiin Suhuur Xasan Abiib iyo Zaynab Yuusuf Xaaji Aadan iyo group kale oo tiro badan rag iyo dumar intaba waan idin mahad celinayaa waynu halaburku waynu leeyahay la taliyaal waynu leeyahay dee dhammaan idinkoo dhan baa ii ah horta marka u horeysa waxaan leeyahay idinku dheerayn maayo bal waxaan rabaa inaan erayo aan u idhi aan idinkagala qayb galo aniguna aan idinku xoojiyo ma waddaniba anigu idinku xisbiga waxaad u bixiseen waddani laakiin anigu cays baan u bixiyey gabaygaana sheegi doonaa ma waddaniba weyrax dhaladkii wararta xisbiga waddani muxuu ka dhashay wuxuu qaadan waayey buu ka dhashay oo sooyaal inagu soo ahaa ninka la yidhaahdo Bill Clinton ayaa isagoo tilmaamaya ammaanaya John Kerry oo madaxweyne W Bush la tartamaya buu wuxuu yiri John Kerry 12 sanadood oo dhib iyo leeleel iyo silic ahaa oo ummaddu ay aasantay reer America ayuu igala soo qayb qaatay buu yiri John Kerry oo 4 Jimmy Carter iyo 8 Ronald Reagan ayuu igala soo qayb qaatay banaankana ila soo dhigo dadku dawatay xabaalaha fanaaniintu ku sheegeen Michael Jackson heestu qaaday dadku xabaalaha markay ka soo baxayeen dadku way aasmeen marka xisbiga waddani dad aasmay ayaanu rabnaa oo marin habaabay
inuu majaraha u qabto oo cadaaladda bariya galbeed iyo bartamaha inuu cadaalad ku shaqeeyo lilaahi baan hadlayaa minaan idinla hadlayo waayahay weyrax waxa uu ka dhashay weyrax waa garan kartaan marka ma wadaniba weyrax dhaladkii uu dhashay xisbigu uu dhashay ma wadaniba weyrax dhaladkii loo wanqalayo waaga tiigsaday ma wadaniba weyrax dhaladkii loo wanqalayo waaga tiigsaday waaga markaad xidig eerli reerka qiimaha lihi eerli buu ka lahaa si uu meel fiican qoraxda kulaylaha uu uga baxsado goor horu arooriyo gudaa marka waagu tiigsadaa baa la yidhahdaa xidigtu ku gudaa reerka dee ninkaa naag wanaagsan ma gaadhid baa la yidhi reerka dee maaragtay qiimaha badan ma wadanibaa weyrax dhaladkii loo wanqalayo waaga tiigsaday ma wadanibaa wadhan iyo bari wadhan waa baran baan uga jeedaa ma wadanibaa wadhan iyo bari wiglada cayaar welcome lagu yidhi welcome baran baa xisbiga u sacabtuntay bari iyo galbeed ayaa u sacabtumay xisbiga ma wadanibaa wadhan iyo bari wiglada cayaar welcome lagu dhahay so welcome waxa weeyaan dee waa soo dhawow ma wadanibaa wajaale iyo bogox wajaale iyo bogox waa wixii galbeed ah wajaale iyo bogox wilwila cayaar werdi iyo faal wanaag loo dhigay markaad faal doonayso hadduu dee bayaad kuu soo baxo baadidaadii bayaad ma u baxay qabqable ma wadanibaa wajaale iyo bogox wilwila cayaar werdi iyo faal werdi baa loo rogay faalna waa loo dhigay wanaag loo dhigay so markaa wadani inuu guulaysanayo macid bay caad ka saaran tahay wuu jiirayaa dee wuu jiirayaa ma wadanibaa walaal ma wadanibaa walwal laydhliyo walwal waa laydh ma wadanibaa walwal laydhliyo neeco wagac tidhi waqal roob da'ay wahow loo yidhi wahow loo yeedhayaa macnihii loo yeedhayaa laydh waa laydh caafimaad xisbiga wadani waa ufo weeye ha waayahay ma wadanibaa wargeysyadu badi weedho qurux badan wanaag laga qoray waar xumaan lagama qorin dee sida kulmiye xumaan lagama qorini wanaag baa laga qoraya maxaan u qarsanaynaa dee haddii faoli timaado haweenaw guda qarsi ma jiro ma wadanibaa wargeysyadu badi weedho qurux badan wanaag laga qoray dee waanu sheegaynaa ma wadanibaa gacal wadayoo runta weheshaday haddaad war horta yaa gacala dee wixii run isu sheega ama dareen siyaasadeed isku raaca ee aan ehel isku raacin isku raaca midnimo isku raaca waa kuwa ma wadanibaa wadar loo xulay oo wax garan kara wanaag hanan kara laysku wada guray dee wadani baa lagu soo wada biiray ma wadanibaa warma haliseed oo nacayb wado weedho qiiro leh walaalnimadii colka wadhaf iyo waabiya yidhi ma wadanibaa abwaan weeyiyo warka keeno wanaag laga guray haddii warka lagaa guri waayo xemati laakiin wanaag waa laga guraya wadani ma wadanibaa abwaan weeyiyo warka keeno wanaag laga guray ma wadanibaa nin wisiisiyey nin baa shakiyey waxbuu ka shakiyey ma wadanibaa nin wisiisiyey wakiishadayoo walaalnimadii wacaysow yidhi so nin baa shakiyey xagguu haddaba waa inaad meel waceensataa dee wadani buu icaansaday muxuu u bixiyey marka wacaysow yidhi waa idin salaamayaa mudaniya murwooyin waa inoo iyo wacays iyo wadani kulligii waa salaamantii cabdillaahi aad baad u mahadsan tahay bahalkaasoo qoraalna waanu kaaga fadhinaa hadhigin kuwaladaa lagu siiyey iminkana waxaan u yeedhayaa keynote speakerkii caawa waxa weeyaan xubin ka mida golaha fulinta waxa weeyaan xogeyaha arrimaha gudaha ee xusbiga wadani ee mucaaridka ah axmed cali baxre axmed soo dhawow axmed dhawaan buu doorashada kadib uu wadankii ka yimi bal warbixinna hayna siiyo dee wixii dardaaran iyo ducaad reer toronto faraysana waan kaa sugay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
mudaniya marwooyinba marsida sharafta leh xubnaha xisbiyada kale ka socda waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa iyana salaantaa ii raaca inaan doonayo inaan reer Toronto ama reer North America dhammaan ummadda reer Somaliland gaar ahaan taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga wadani inaan u soo gudbiyo salaan aan uga sido gudoomiyihii ama gudoomiyaha xisbiga wadani isla markaana ah afayeenka ama gudoomiyaha golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro salaantaana waa iga gudoomiysaan waxa laga yaabaa oo waliba aan ka yara cudur daaranayaa ducaalaan hoosta ka maagayay khadarguna waa ka daba tegey maxamed beergeelna isna intii yarayda harsanayd buu xabsaday laakiin anigu waxaan istameynayaa iyadoo platformkii xisbiga ku base garaysan ayaan runtii intii ay yidhaahdeen la moodaa inaan inteeda badan ka odhanayo marka ugu horeysa hadalkayga runtii waxaan ku bilaabayaa dee inay sharaf ii tahay inaan caawa idinkala qayb galo xafladdan aynu ku xusayno guusha xisbiga wadani uu ka soo hooyey doorashadii ka dhacday dalka 28kii bishii November taasoo wadani uu ku guuleystay kuna noqday xisbi qaran runtii xisbiye kalena dee soo baxeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin si nabadgelyaana inoogu dhacday ilaahay maadaama ka gaadhay guusha xisbigu gaadhay waa mid ku timi xaqiiqada ama dadaalka iyo runsheega kalsoonida isku duubnida tala wanaagga iyo dadaalkii aan loo kala hadhin ee ay la yimaadeen taageerayaasha iyo xubnaha xisbiga wadani sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa dhammaan musharaxiintii ama aynu iyadana aan tahniyad gaara gaarsiinayaa musharaxiintii dalka doorashadii golaha deegaanka ka qayb gashay xisbigay doonaanba ha ka tartamayaan gaar ahaan kuwii ururka wadani ama xisbiga wadani u gudbiyey darajada xisbinimo ee uu maanta taagan yahay qaar badan oo ka midihii way hadheen kuwii hadhay naftigooda waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanuna xasuusannahay ile taageerayaashoodii baa halka joogay waxaan xuubaa in kharash aad iyo aad u badan baa maanta doorashadan dalka ka dhacday ku baxay qof reer Somaliland ah oo aanay saameynina ma jirin iyo guri aanay taabanaynin fadlan iyana raaliga ahaada anigu war xogagaala oo xog badan baan idiin sheegayaa waxaa laga yaabaa khudbadaydu inay odayaashii hore ka yara dheeraato maadaama ay guri walba taabatay oo reer Somaliland waxa weeye in aynu u tahaniyadeyno sida ay nabadgelyada ugu shaqeeyeen sida qof waliba u ilaaliyay inaan sidii ducaale iyo raggii ugu horeeyay sheegeen inaan riiri u hirdin goobihii doorashada intii ay doorashadu socotay kuwii soo baxay iyagana dee tahaniyad baynu u diraynaa waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala ha idinku guuleeyey xilka iyo mas-uuliyadda aad dadka u qaadeen ilaahayna ha idinka dhigo kuwii dalka anshixiisii wax badan baa ka lumay maamulka xagga hoosuu ka soo kharibmay in ilaahay subxaana wa tacaala toosintii maamulkaa kuwii aabbaha u noqon lahaa ehelka u noqon lahaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala idinka dhigo ayaynu iyagana ugu ducaynaynaa kuwa ku soo baxay wadani sida dadka qaar moodayaan guushan uu helay ama kaftankiibay ku jirtay in kulmiye iyo maxaa la yidhahdaa garab u cid ka mida uu ahaa runtii wax hadiyad loo siiyey ma dhicin haba yaraatee wadani taageero uu dadkiisa iyo shacabkiisa ka haystay iyo shaqo adag oo uu galay ayuu ku soo gudbay kuna galay doorashadii ilaahay subxaana wa tacaalana waa ku guuleeyey hoggaanka dadka talada isu keenay ee hawsha baaxadda leh ka midho dhaliyey gudoomiyahooduna wuxuu ahaa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro isagana ilaahay cimrigiisa ha raajiyo wadani ahmiyad gaar ah ayuu siiyey doorka siyaasadeed ee dumarka dhalinyarada
iyo dadka laga tirada badan yahay waxyaabaha wadani saaciday ama ku guuleeyey inuu si hawl yar u noqdo afka dadka intii aan doorashaba la gaadhin marar badan baa maqasheen ama marka la kaftamayo xisbiyada soo baxaya yaa koowa xisbi waliba wuxuu lahaa annaga ama I mean urur waliba waqtigaa maca kulmiye xisbi xaakimku dee waa kii urur isu bedelay marka urur walba wuxuu lahaa annaga ayaa annaga koowa marka lagu yiraahdo ama dadka dee caadiga marka la wareysto marka la yiraahdo yaa idinku xiga waxay lahaayeen wadani marka taasi waxay noqotay guul ilaahay subxaanahu wa tacaala afka dadka bulshada reer Somaliland inuu ilaahay afkeeda geliyey reer wadanina ay maxaa la yiraahdaa cududooda aqligooda iyo waqtigoodiiba isugu geeyeen si ay uga midho dhaliyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintaa uu rumeeyey caawa waxaynu harsanaynaa ama aynu joognaa ama aynu ka midnahay jamhuuriyadda Somaliland oo xisbiga wadani uu ka mid yahay xisbiyada qaran ee dalka u diyaarka inuu ka qayb galo doorashooyinka soo socda haddii ilaahay ka dhigo xagga arrimaha dibadda xisbigu wuxuu doonayaa inuu ka midho dhaliyo himilooyinka ummadda Somaliland sida aqoonsi caalami oo la helo diris wanaag iyo in xiriir dhaqan dhaqaale oo dhow lala yeesho dalalka diriska xilligii isreebreebka sida aan hadalka intaa kaftanka ma garanaysaa laga sheekeynayay xisbi waliba kulleyba isaga un baa filayay inuu soo baxayo marka wadani iyo kulmiye waxay ahaayeen labadii la isku lamaaneeyey sidii iminkaba hadalku u dhacayay tartan baase ka dhexeeya waxaan qabaa anigu hadalkaa uu yidhi ducaale iyo maxamed isaga dambeeyeen ahaa cadow baynu nahay inay xaqiiqo tahay dee cadow ehel ma nihine cadow siyaasadeed baynu nahay haddii ilaahay idin ka dhigo waana doontii survivalka la saaran iyo gacmaha faashil iskaga jaraya in loo naxariisanayaa ma jiro maalintaa nin waliba wuxuu doonayaa kursiga inuu fuulo kursigana laguma saaxiibo oo laba nin oo kursi wada doonaya si ay saaxiib u noqon karaan horena umay dhicin I don't think inay iminkana dhacayso waqtigii doorashada iyo abaabulkii horena namay soo marin marka wadani waxa uu diyaar u yahay oo aan saaxiibada u sheegayaa kulmiye iyo cid labada xisbiye hadda soo baxayba in aanu diyaar u nahay kana shaqaynayno sidii marka uu xilka dalka u qaban lahaa dalkana la jecelo badan baa naga haysa aanuna ka qabanno wixii aynu tartanka sidii si loogu geli lahaa maxaa la yidhaahdaa tartan xalaala oo nabadgelya oo sidii loogu talagalay u dhacay iyadoo aan ceeb cay iyo isxagxagasho toonna aanay jirin xilku waa meerta baan leeyahay weliba xisbiga kulmiye aan si gaara usii leeyahay nidaam dimuqraadiya oo dadku waxna dooran kara lana dooran kara baa meesha ku timaadeen maanta xukuumadda jirtaana dalka waxay ku timi doorasho may ahayn jabhad ama cid afgembi ku qabsatay marka waa in iyaguna ay u diyaar garoobaan waqtigooda in sidii si leeg lagu bedelayo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa labadooda sannadood markay dhammaato in aynu si dimuqraadiya iyagana u bedelo xilka uu wadani ugala wareego wadani waa xisbi u taagan dhismaha iyo horumarka dalka hagaajinta asluubka iyo dhaqan wanaagga siyaasadda wuxuu xisbigan u samaysmay inuu toosiyo xukumka wixii ka qalloocda sidaa oo finicilkaa sheegayeen si constructive oo macnaa lexejecla ku jirto in wixii khaldamo ula hagaajiyo inta laga gaadhayo intuu kursiga ku fadhiisanayo waxay xukuumadda ku taageerayaan wax allaale iyo wixii waxqabada ee dalka wax loogu qabanayo iyo dadka waxa xisbigani doonayaa inuu noqdo mid lagaga daydo hoggaan wanaagga hanaan wanaagga dhaqan wanaagga iyo anshaxa suuban ee diinteenna islaamku ina farayso waa waxa durbaba dhisan oo ururka ama xisbiga wadani u dhisan hanaan iyo qaab la yiraahdo shaaro ama maxaa la yiraahdaa in qaabkii dawladnimo ay isaga dhisan yihiin si loo carbiyo oo loogu tababaro waqtiga doorashada madaxweynuhu ay dhacdo in xukunka si yaroo maxaa la yiraahdaa transitionku si qurux badan u dhaco dad u sii tababaran oo wax walba la sii socday waxa waliba meeshay marayaan ay hawsha ula wareegaan
waxaan mar kale halkan ka cadaynayaa marka xamaha soo baxay ama hadallada suuqa laga yidhaahdo waqtigii ururnimadana la lahaa laga yaabo welina inay jiraan in cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi aanu ahayn musharaxa maxaa la yidhaahdaa ururka xisbiga ee uu kelmad cusub baa soo baxday berigii dhaweyto doorashadoo waraabowtaagga la odhanayay marka inuu yacniga xisbigu ama waraabowtaagya ama aanu musharaxii rasmiga meesha marayn waxaan caddaynayaa maxamed isaguna uu caddeeyey xeerarka xisbigana ku qoran inuu cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro uu yahay musharaxa madaxweynaha labada sannadood ee soo socota markay dhammaato haddii ilaha yidhaahdo sidii uu waxaan rifargaraynayaa saaxiibkay khadare sidii uu sheegay cayda iyo aflagaadada isxagxagashada iyo waxyaabaha la midka ahi maaha wax siyaasigu guul ku gaadho sideedaba xisbiga wadanina waxyaabahaas waa waxyaabo ka reeban waa xisbi ku caanbaxay anshax wanaagsan waa xisbi meel kasta iyo goor kasta dadka doona inuu u horseedo dhaqan wanaagsan waxaa sidoo kale halkan aanu ka caddaynaynaa inaanu xisbigan aan loo samaynin colaad cadho iyo maxaa la yidhahdaa ficiltan hogaamiye kale xisbi kale iyo xukuumadda dalka ka talisa midna cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi qof kasta oo af soomaali ku hadlaa markaa guddoomiyaha naftigiisa sidii raggii iga horreeyey sheegeen waa nin sumcad iyo taariikh wanaagsan kule dalka waxa unaan ka qaatay raggii ruushka soo maray waddankii la odhan jiray midowga soofiyeti wakhtigii cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi joogay ciddii soo martay ee ay duruufi ku qabsatay waxaan u malaynayaa iminka yurub haddii la tago dadka jooga inta ugu badani waxa ay soo mareen cabdiraxmaan yacniga dadnimadiisa daljacaylkiisa isagoo aan u kala aabba yeelin yay yihiin magaaladee baad ka timi in ayaa tahay reerkee tahay inuu qof walba meeshiisa ku saacidayey waxa ugu fiican uu qaban karana u qabanayay waxaan filayaa inay taa ka hadli karaan dadkii maxaa la yidhahdaa halkaa ku soo maray sidoo kale wakhtigii ay haddeer ka hadleen labadii xubnoodee kulmiye oo runtii wakhti taariikhi ahayd dee cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi dalkan abaal weyn buu ku leeyahay sidii hore loo sheegay kumana dheeraanayo abaalkiisiyo waxaan aada ugu faraxsanahay in raggii iga horreeyey sheegeen wakhtigii uu hogaaminayey golaha baarlamaanka ee ay ugu xasaasisanayd ee isbedel doonkii kulmiye uu socday waxaan filayaa cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi la-aantii maanta inaynaan halkan iyo arrintan midna ka wada hadalleen haddaba si loo gaadho loogana dhabeeyo intan waxaan si gaara u leeyahay dadka taageerayaasha xisbiga waddani annagu kolley dalkii dee markaanu joognay hawl badan gallay orod gallay idinka iyo jeebkiinana dee kolley waa ku xisaabtamayni haddaba si looga dhabeeyo himilooyinka iyo hanaanka xisbigeenna waxaa loo baahan yahay dhaqaalaa loo baahan yahay ma doonayo in aan dee dhinac kale u dhigo ama si kale wuxuu idhaahdee wakhtigii kulmiye waxaan xasuustaa dee dumarku dahabkooda iibinayeen xisbigan kulmiye halkan hadda kursiga ku fadhiyaana bilaash kuma iman daaraa la iibiyo waynu ogeyn halkudhigyaa jiray oo ama naga mid baa tahay maxay ahayd kelmaddii haddaanad dhaqaalaha bixin xisbigana kama mid tihid reerkana kama mid tihid yacni waxyaabo fara badan baa la isticmaalayay marka waxaan leeyahay anigu kolley maanta waxaan taagannahay ceelna uma qodna cidina uma maqna dadka uu xisbiga ku xisaabtamayaa waa innaka ama halkan aan joogna ama dalkii aan joogne xisbina dhaqaalo la-aan lama dhaqaajin karo marka waxaan leeyahay jeebka gacanta ha la geliyo xisbiga ha loo hagar baxo waa haddii aynu doonayno inaynu ka dhabayno ujeeddada ah oo kulmiye kursiga ka qaadno haddii kalena dee 10 sano soo socdo waa sugaynaa waxaan doonayaa inaan iyadana in yar ka taabto doorashadii dalku sida uga dhacday alxamdulilaahi rabbil caalamiin guud ahaan doorashada horta si aad iyo aad u wanaagsan bay u dhacday waxay ahayd doorasho aad u baaxad weyn oo uga baaxad weyn intii la filayay
sida muuqatayna waxay ka baaxad weynaatay xataa commissionkii qaranka waxaan isleeyahay markaan dalka iyo nidaamkiisa ka warhayo nimanka commissionka ee la canaananaya intii tabartooda way dadaaleen soomaalida waxay tiraahdaa dad kaa badan iyo biyo kaa badaniba way kaafiyaan xaaladdu runtii xaalad farahooda iyo awoodooda dhaqaale intaba ka badan bay ahayd 7 urur baa tartamayay tirada musharaxiinta dalka ka tartamay waxay ahaayeen 2135 xildhibaan bay ahaayeen ama musharax waxa soo baxay oo kaliya 305 musharax marka laga reebo qoliyii isxambaarka ahaa waxa hadhay oo dhacay 1830 musharax baa ku dhacay doorashada waxa hadhay 4 urur baa hadhay intaa leeg runtii waxyaabaha ay abuuri karto ama xiisadda ay abuuri karto iyo buuqa qof kastoo bini aadmigu garanaya waxa iyaduna jirta waqtigii la bedelay doorashada xeerkii doorashada ee hore ee lagu dhaqay golihii deegaanka kan ka horeeyay qaabka loo waday wuxuu markii la bedelay wuxuu kordhiyay kharashkii doorashada ku baxayay taasina waxay meesha ka saartay muraaqibiintii in xisbiyadii laga bixiyo ama xildhibaanadii ama musharaxiintii sharaxayay in muraaqibiintii laga bixiyo 2135 xildhibaan oo nin walba la yidhi adigu iska bixi muraaqibkaaga waxaad qiyaasi karaysaan weliba 3 cisho lacagtood adigu bixi asxaabta ururadiina qaar badan baa kari waayey xildhibaanadii ama musharaxiintiina qaar badan baa kari waayey taasi waxay markaa dhalisay iyada naftigeedu guux iyo culays ku yimi ururadii kalsooni darro fara badanna dhaliyey waayo dee meelaha qaar baan ciidamo muraaqib geysan markii ay kari waayeen dadkii maxaa la yidhahdaa ka sharxnaa marka degmooyinka dalka ay doorashadu ka dhacdayna 19 degmay ahaayeen 19 degmo markii hore waxaa loogu talagalay 21 degmo inay dalka ka dhacdo degmada Baran iyo Dhahar sababo markaa soo kordhay awgeed baa looga saaray 23 degmo way dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii aan intaa idin yara biniixiyo 23 ka degmo 2 degmo markii horeba laguma talagelin xaalad nabadgelyo awgeed waxay ahaayeen Taleex iyo degmada Laasqoray laakiin inta kale waa lagu talagalay 2 degmo oo haddana maxaa la yiraahdaa kamida degmooyinka dalka oo ay tahay degmada Buuhoodle iyo degmada Xudun qayb ahaan bay ka dhacday doorashadu inkastoo xisbiyada qaarkood dana gaara ka lahaayeen oo doonayeen in sanaaduuqda la geeyo aan xoogaa kulmiye yara hoosta kaga mudee waayo halkaasi waxay ahayd meel aan cidina ka soo codayn karayn waxay ahayd macnaha waxaan uga jeedaa degmooyinka qaybta hadhay in la geeyo sanaaduuqda dhammaantood laakiin ururada kale waxay u arkeen halkaa in lagaga soo shuban karo waanuna ka joojinay marka shax guud haddii aan idhaahdo gobolka Awdal waxaa ka soo baxay 64 xildhibaan baa ka soo baxay gobolka Maroodi Jeex waxaa ka soo baxay 27 xildhibaan gobolka Saaxil waxaa ka soo baxay 34 xildhibaan gobolka Togdheer waxaa ka soo baxay 45 xildhibaan gobolka Sool waxaa ka soo baxay 39 xildhibaan gobolka Sanaagna waxaa ka soo baxay 51 xildhibaan tirada intaa leeg ayaa dalka maxaa la yiraahdaa ka tartantay dhaqaalaha aynu haysano awoodeennu intay leeg tahay runtii iyo xataa marka dhinaca kale loo eego dawladnimada waxa aynu ku haynaa inta ay leeyihiin waxa la moodaa dad badan inay hoyaro hoosaasisay qurbaha oo expectationka ama waxa laga filayo dalku inay wax aad u weeyihiin oo sida wadamada reer galbeedka oo kale inuu dal maxaa la yiraahdaa wax waliba ay up to date yihiin oo wax waliba sida la rabo ay u dhacaan ma filayo arrintaasi inay arrin dee hadda shaqaynaysa ama ay meesha taalo tahay dadka reer Somaliland waxa aan ugu dambeyn runtii jecelahay inay mar walba xasuusnaadaan dalka lixjecladiisa waliba dadka dibadda jooga ayaa aad wax loogu xantaa inay dadka shaararka badan u galiyihiin anigu de halkana waan joogi jiray dalkiina waan joogaa had iyo jeeraale xamaasadda iyo xiisaddu waxay ku badan tahay dibadda habeenkii dhaweyto ee magaalada Hargeysa xoogaa rabshadu ka dhacday waxaan joognay badda cas meel ku taalaan joognay
waana lala soo hadlay magaalada Toronto-na lagala soo hadlay waxaana lagu yiri Hargeysa mudaharaad baa ka dhacaya dadna way ku dhinteen maxaa warka haysaa bilxaqatan anagu warka ma aanan hayn waxa laale iyo waxaan ka warhaynay iyo wax dhintay iyo wax la sheegay midna warkeeda ma aanan hayn magaalada Hargeysa dee magaalada hadii loo haysto dadka intii aan dhawaan tagayni inay meel yaro dhagax la tuuro dhinaca kale laga maqlayo tahay alxamdulillah way weynaatay rag badan oo ama dad badan oo maanta inaga mid ah haday ku noqdaan way ku lumayaan marka la iskama warhayo isla markiiba arrimahaasi waxay noqdeen arrimo la exaggerate gareeyay doorashadana cadowgeenu inuu ka faa'iideysto damcay waxaynu ognahay oo website-yada la soo galiyay kaadhadh haddii Bakuuron yahay lagu codeynayo la qubay gobolka Sanaag bay ka dhacday arrintaasi sanduuq meeshii uu ahaa meel aan ahayn la geeyay bay ahayd haddii cidda markaa isticmaalaysay cid ku shubasho ka rabtay ahayd oo danga markaa ku danaysanaysay waxaan may soo samayseen inay dhaawac ugu geysato doorashada iyo qaabka uu u socday bay ahayd ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa inaga badbaadiyay waxa aan mar walba dardaarmaya gabadh baa waxaan soo wada raacnay diyaaradda qoladii observerska ahayd ina yaroo Ingiriisa oo London bay ku noqonaysay marka qoladii observerska ahayd degmooyinka dalka degmo kamida bay tagtay waxay tiri waxa aad iyo aad fani u ahaa inaan la kulmay laba qof oo iska maydhaya bay tiri baashi khadkii farta la geliyay marka labadii baan soo dul taagay ma bay ka fogeen bay tiri meesha laynku ku jiro marka cidina ma danaynayn yaani laynkana xisbi waliba uu ku jiray marka waan weydiiyo maxaa sameynaysaano khadkii iska maydhana markaana waa ku noqonaynaa oo adigu xisbigee tahay dabeetana ururkee tahay marka urur buu ii sheegtay bay tiri kii hore kii kalena ururkii ka duwan marka waan qoslabay tiri waxaan yiri they fine haday rally iskaga yihiin marka what's the big deal marka ujeedada meesha taala waxa weeye dadka reer Somaliland runtii nabadda iyaga inaga jecel dadkeena dibadda jooga wixii aynu nabadda ku tari karnaa inaynu ku tarno aad bay u fiican tahay maaha iyo gabay bay ku jirtay baan u malaynayaa gabayada ma aad uma aqaanee inaad saamajiidiyo sanqartirasho kala daa in sharcigii aynu fulino oo reer Somaliland oo aynu dal sharci nidaam iyo kala dambeyn la aynu noqono iyo inaynu inagu nidhaahno sharcigu ina qaban maayo ee geel jiray iyo nimaan la aqoon ha qabto runtii waa ayaan darro weyn haddii uu dhibaato timaado ama macnaha kacdoon yimaado dee ciidan iyo dawlad iyo nidaam baynu samaysanay wadani haddaynu nahayna haddaynu qabsanno meesha waxaynu doonaynaa iyadoo wax dhisan yihiin inaynu u tagno wax dunsan inaynu u tagno dooni maayo waagii dawladdii udub wasiirka ka ahaabaa maalintaa oo ka sheekeynayo dacaaliya ayaa ka sheekeyn jirtay waa gaari aan watay gaarigii GT-da ahaa ee dawladda ayaa qolo yara cadhaysan baa aad u ruxday marka waanu ka baqnay inay dee naguba rogaan markaa gaariga waana maalmahay gaariga gubayeen marka waxaan ku yidhi intaan ka soo degay baan ku yidhi gaarigan markaa meesha qabsataan hadhow gaarigan waa u baahanaysaan marka hadda iska gubtaan ama aad rogtaan hadhow waxaa ku shaqaysaan heli maysaan waa u kaadiya nimankii intay soo qabteen ba gaarigii saaray waar kaxaysayeen waxa loo gaarigaago way hadhow baan ka kaxaysanaynaa marka waxa weeye de waxaynu u baahannahay inaynu nidaamkii oo jira oo wixii ay ma garanaysaa dalkii oo wax waliba taagan yihiin in loo yimaado maalinta dhaweyto rabshada yar de runtii in a way marka khasaare yimaado ma yarayn laakiin de consequences wuu imanayaa marka sharciga laga hor yimaado waan u tacsiyadeynayaa waxaana leeyahay dee cid waliba way ka xumaatay wixii dhacay hase ahaatee waxa weeye dee haddaan sharciga iyo nidaamka la ilaalin inta badanna dibadda laga buunbuuninayay reer Hargeysa aad iyo aad bay u jeclaayeen in arrintaasi ay degto oo ay qabowdo insha Allah ta'ala dee waxaynu ku dadaalaynaa inaynu dhammaanteen xil iska wada saarno wixii talaana ka geysano dalkiina weydiin baahan yahay maanta waxa kale oo doonayaa inaan intaa ku daro de haddii hore aynu waayadii hore aynu maqli jirnay dalku weli uu baahan yahay waxaan qabaa maanta opportunity fara badan baa dalka yaala waxa kaloo beenowday in dalka la maal gashan karo haddii aan itraaf la helin itraafkii iyo way kala tageen iyo dalka wixii la gashanay shirkado batrool qodayaa jooga qaar maxaa la yiraahdaa baanan dhisanayaa jooga qaar doonaya inay dekedaha maxaa la yiraahdaa maal gashadaan ama dekedaba cusub dhisaan baa jooga haddii ay helaan heshiiskay doonayeen ama qaabkii wax loola geli lahaa
dalku jaanis buu leeyahay balanti weliba aad iyo aad u fara badan dee ninkii wax isku hayow waxaan anigu odhan lahaa dalkii hala yimaado ugu dambeyntii reer wadani gacanta jeebka hala geliyo dumarow dahabka hala iibiyo ragoo guryaha la xaraasho kulmiye waa xididaystay si yar lagaga furfuri maayo kursiga marka hala diyaar garoobo faraha la isjarayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waad mahadsantahay axmed waa dhabo sharciga in laga hor yimaada ma wanaagsana laakiin dee kolley mas-uuliyad dheeraadaba dowladda saarane annagu mar aanu dhowr dumara annagoo ah ka hadalnay wixii dhacay waxaanu isnidhi bal ha loo fundraise gareeyo ciidamada maalin walba xabadda carruurta u adeegsanaya in la siiyo xabadda rabadhka ah iyo ta ka ilmaysiisa dadka oo tan rasaasan dhabta carruurta ha laga daayo fariintaana waxaan farayaa qolada kulmiye hadaladii iyagoo intaa inoogu kooban waxaa inoo yaala refreshments waxaa inoo yaala cabitaan iyo cunto fudud dhinacan waxaa yaala coffee iyo shaah dhinaca waxaa yaala qabow waan idinku soo dhaweynayaa intaan se aynaan u gelin waxaan jeclaan lahaa waan hubaayo halkan waxaa jooga dad badan oo caawa doonaya inay wadani galaan waxaan halkan ku hayaa oon idinku bishaareynaya membership cardski intii aan doonayna waxaan ku boorinayaa inay nala arkaan wadani waxaynu galaynaa dagaalkii kulmiye marka waxaynu u baahannahay inaynu caawa halkaa ka rugruud garayno weliba waxaan ugu horreysiinayaa qolada kulmiye laftooda ayaan jeclaan lahaa bal hadda consider aan idin siiyaa haararka ducaale iyo beergel iyo waxaan jeclaan lahaa inaad nala aragtaan wadani platformka kolley beergel wuxuu ahaan jiray ninka had iyo goor yidhaahdo waxaan platformkan ugu jecelahay sorry waa platformka wadani soo ma wada aragtaan marka diyaar baan laahay membership cardski please waan idin waxaan jeclaan lahaa horta haddii aad u baahataan waa akhriyi kartaan website-ka ka helaysaan muxuu hayay programkiisa marka inta qaadataan soo akhriyo oo hadday idinla noqoto marka membershipkii dee sidaas aynu isku ognahay waana hadalladii way inoo filan yihiin waa qoobka ciyaar waynu iska xafladaynaynaa heeso badan oo wadani ah iyo heeso madadaala iyo heeso lagu tuman karo waa sabti shaydaanka iska naara waa kaas yaan lagaa badin waa mahadsantihiin وما هدافها
وانا قدسها وحيد عيبة تكيس حياها وطني قدوتا الله دور الله دور صومالي لا الله دور siday turxaanka u dhameen dhigod iyo qayrkood u dhaafeen allow dhow Somaliland dabadii wanaagay dhaqawday siday turxaanka u dhameen dhigod iyo qayrkood u dhaafeen allow dhow ودرارتي للناقي قد بيع على كيني بلان كينو نبضكو سهزي ودرارتي للناقي قد بيع على كيني بلان كينو نبضكو سهزي وما هدفها وانا قدسها وحيد عيبة تكيس عياها وطني قدبتها الله دور وما هدفها وانا قدسها وحيد عيبة تكيس عياها وطني قدبتها الله دور الله دور صومالي لا الله دور حلقي أوي إلى شيء وأعطتها لي دقيقتين لكني عيب إيش كدوري ودي السوقي كداتين Somaliland حلقي أوي إلى شيء وأعطتها لي دقيقتين لكني عيب إيش كدوري ودي السوقي كداتين ودرارتي للناقي لدي على كيني بلان كينو نبضكو سيدي ودرارتي للناقي لدي على كيني بلان كينو نبضكو سيدي وما هدفها وانا قدسها وحيد عيبة بكيس عياها والطريقة دوتها الله دور وما هدفها وانا قدسها وحيد عيبة بكيس عياها والطريقة دوتها الله دور الله دور صومالي لا الله دور
iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsadaa walaalo iskaashanaya wanaagii horumar jecel waxay doonaan qabsadaa ayaha wadankooda raba isweeshada baynu nahay ayaha wadankooda raba isweeshada baynu nahay wadani waxaan ahay wadani waxa tahay wadani aynu noqono wadani wadani waxaan ahay wadani waxa tahay wadani aynu noqono wadani wadada saaxa ee xaqa cawiiq min nabad ku warta waayelkeeniyo barbarta wadada saaxa ee xaqa cawiiq min nabad ku warta wadeecana aan helin si wada jiraan loo ilaasho wadeecana aan helin si wada jiraan loo ilaasho wadani waxaan ahay wadani waxa tahay wadani aynu noqono wadani wadani waxaan ahay wadani waxa tahay wadani aynu noqono wadani Amin.